لا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح ونكسل. maanta waa maalin axad ah, maalintii World Cup-ka. waan islaamay maanta waxaa dhacayo koobka adduunka, marka runtii waa koob dunida dhan ay isha ku wada hayso oo xiiso leh. laakiin waxaa jiro waxyaabo runtii ka muslim ahaan xiiso fiican nagu yeelayo. taasina waxay tahay in koobka adduunka uu ka dhacayo waddan muslim ah, qadarna ay sameynayso wax cajiib ah, dunida ay dhan ay cashar barayso. waxyaabaha ay sameynayso waxaa ka mid ah koobka adduunka inuu noqonayo koobka adduunkii ugu horreeyay ee quraan laga akhrin doono, koobka adduunkii ugu horreeyay oo ay culamo khudbooyin diiniya ka jeedin doonaan ayuu noqon doonaa. qadar waxyaabaha kale ay sameysay waxaa ka mid ah inay mamnuucday in garoomada lagu iibiyo qamriga iyo meelaha babliga ah. qanaysiintii meel baa la saaray. marka qadar runtii waxay sameynaysaa taariikh cajiiba ay sameynaysaa. maantana waan ka warqabi doonaa runtii sida magaalada Jigjiga looga daawado koobka adduunka ama mundiyaalka dunida. koobabkii hore waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay, inkastoo ay kasoo qaybgalayaan fanaaniin iyo waxyaabo noocaas iska soo qaybgalay ee lagu casuumay. haddana annaga waxyaabaha noo muhiimka waxay tahay in dunida dhan ay maqasho aadaanka quraan akhrinta. waxaa macquul ah inay gaalo badan ay ku islaamaan, waayo islaamku waa naxariis, waa nimco. marka waa isla socon doonaa maanta waxyaabihii soo kordha dhan waan idinla soo socodsiin doonaa. Sheekh Zakiir Naik oo aad taqaanaan daacigii weynaa ayaa meesha khudbad ka jeedin doona. cunug yar miil yar oo dhalinyaro ah oo baahiyaha gaarka qaba ayaa wuxuu ka akhrin doonaa qaatim in la dhahayaan filaya. wuxuu ka akhrin doonaa aayadaha qur-aanka ayuu ka furi doonaa. waxaa kalaa jiri doona in ay caruur ay ka akhrin doonaan suuratu raxmaan. runtii meesha maasha allah, qadar wax wanaagsan ayay sameynaysaa. xilliyada ay jirto xilliyada salaadaha sida aan ku maqlay inay runta ina beenta ma garanayo, laakiin ciyaarta waa la hakin doonaa si salaada loo soo wada dukado. marka maasha allah waan soo socon doonaa. أيها السوم الكبير برماشي انتم بيثمرينا ضلدا فوق ماشي maxay fanaad u laxayaan maxaa ka qaldan maxaa ka sii yeelanada. asxaabta qaaliga waan salaamaya runtii meel walba aad joogtaan. waxaa soo idlaaday ciyaartii furitaanka koobka adduunka ee u dhaxeysay waddanka Qatar iyo weliba Ecuador. waxay guusha ku raacday waddanka Ecuador, Qatarna 2-1 ayaa looga badiyay. runtii ciyaarta haddii aan qiimeyn aan ku sameyno sida ay u dhacday, Qatar waxaa haysay runtii khibrad yari ayaa haysay, waayo ciyaaryahanadeeda wax meelo kala duwan kasoo xamaashtay kuma aysan jirin. inta ugu badan waddanka ka ciyaareen waxaa ugu sareeyay midka Akram Cafiif oo aan u naqaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. kaasa ugu khibrad badnaay oo runtii kasoo ciyaaray horyaalka Spain. marka runtii waxaa labada gool ka dhaliyay ciyaaryahan lagu magacaabo Valencia oo u ciyaaro Fenerbahce horyaalka Turkigana ka xamaasha. Ecuador caadiyan waa naadi adag, qaran adag weeyaan.
waadna taqaanaa Amerikada, South Amerikada inta ugu badan ayaga waa wadamo iska awood badan oo waaye badanaa Brazil iyo la xifaaltantaaba waa rag adag. Qatarna naadi khibrad saas leh ma ahan, xataa Israel maysa soo marin. waxay nasiib u yeelatay maadaama ay tahay wadanka martigelinay sidaas, laakiin waxaa jira rikoor ka jabay kaasoo ah 92 sano kadib. waa naadigii ugu horeeyay ee homekooda lagu ciyaarayay, haddana guul darro la kulmay. xataa waxaa ka wanaagsanay South Africa oo 2010kii markii ay ciyaarayeen barbara galay ciyaartooda ugu horeysay ee furitaanka. marka rikoorkaasi rikoor ka jabay ayuu noqday, waana laga guuleystay. mideeda kaleetana ciyaarta marka ay bilaabatay waxay ku bilaabatay waali iyo orod sorry marka waali iyo orod ku bilaabatay, fursadaas ayaana lagu faa'iideystay oo 2 gool looga dhaliyay. xataa iyaga markaasi baaskooda